نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، caawa habeen oo isniin ah bisha shacbaan ay ku beegan tahay 30 ay ku beegan tahay sanadka hijrigana uu marayo 1442 uu marayo. waxaan insha Allah taala soo jeedinaynaa qayb kamid ah soomka ahkaamtiisa qayba kamid ah oo aan ugu magac darnay أصحاب الأعذار وأحكامهم في أيام رمضان. ذاتك عذر دارك أصاحبك الأحكام توذا أو كو واجبيسو أو لقد دونايو مالمها رمضان كقذيهيسا ما دام أي صوم كأوذي كرين إسان تبرؤ هينين قدرة سي أودس إسان قارينين وحي إلهي سبحانه وتعالى كدونايو oo ahkaama inay fuliyaan. waxaan leenahay muslimiinta dabeecadaha ama akhlaaqiyadka ama sifaadka Ilaahay ku amaanay subhanahu wa ta'ala guud ahaan in ay yihiin kuwa wanaaga iyo khayrka iyo barwaaqada u soo sheegayo, sharta iyo dhibaatada iyo munkaraadkana iska reebayo inay yihiin ba Ilaahay ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala sida ayada fara badan oo Quraanka kamida iyo ahadiis nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ay cadeynayaan. mu'miniinta markay wanaaga u sheegayaan ay munkaraadka iska reebayaan waqti walba waa loo baahan yahay, laakiin waqtiyo waxa jiro oo aad iyo aad looga sii bahnaanayo oo arrinkii uu sii labalaamayo xilliyada munaasabaadka iyo waqtiyada kooban oo si shariicada gaar ahaan ahkaam gaar ah ay siisay ay soo dhawaadaan ama ay soo galayaan, sida munaasabada hadan aan noo bilaabo doonta oo ramadaanka ah. ikhwaani, ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda muslimiinta wuxuu ku waajib yeelay amaanaad rabbaani ah oo diini ah inay gutaan sida ilaahay ugu talagalay inay gutaan. amaanaadkaas waa fara badan yihiin. waxaa ka mid ah Allah subhanahu wa ta'ala inuu ku waajib yeelay soomka gudashadiisa sanadka inuu hal mar u imaanayo. soomka wuxuu ka mid yahay sida la og yahay islaamka tiirarkiisa waa qaybo ka mid ah wey. xadiiska qaarkood mid saddexaad bay ka dhigaan, qaarkoodna mid afraad bay ka dhigaan. cumuuman waa rukni min arkaani الإسلام أو قف كستو مسلم لقد دونا إنه قلته دو وقت كسوجار. هذا هو مسألة عن كذا واجني وأن دونينا أصحاب الأعذار وأحكامهم في أيام رمضان. دت كاسي وفرب ذيهن إلى إيا وحي جاريان تري أي جاريان. دت كاس مركا إنتانا أقلين مسائش ذا إي أحكام ذا. waxaan doonaynaa mas'alo yar inaan ka hormarino oo mashruuciyad as-siyaam, soomka jidaynta Ilaahay uu jideeyay subhanahu wa ta'ala. Ilaahay wuxuu leeyahay isagoo tilmaamayo soomka wujubnimadiisa iyo waajibnimadiisa ayuu Rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala: yaa ayyuhalladhiina aamanuu, dadka Ilaahay rumeeyayo, kutiba waa la waajib yeelay عليكم كركينا الصيام صوم بالذين واجب يلي كما كتب سيد اللوغو واجب يلي سلا مدأ على الذين كوي من قبلكم إذين كهريي سيد الصوم لوغو واجب يلي ومذيه إذين كهريي sidaasoo kale ayaa adin kana soom ladinku waajib yeelay
قدتا الله إماذا وي محا إلهي أيالي لعلكم تتقون سئاد الله أقول بغضان أو أمر كيساد أفلسان وحي إلهي إذن كو واجب يالي أو صومك أي كمتها إن اللتي ماذان وحي إلهي إذن كرهيبي أو صوم كتجد أي كمتها إن كرهيبتونات يعني كهرتان أي الله سبحانه وتعالى واجب يالي صوم كاسمرك سيلو صوميا مالمه سنواكما إلهي آيات دنبكو عديي وحو الله ليه أياما معدودات صوموا صوما أياما مالما صوما مالمها صوم معدودات لتريي مالما ترسمايو واللي أجيهيو معلومات أو شريعة أي عديسي صوم إلهي ليه سبحانه وتعالى مالمهان وبداية شهر رمضان إلى أي كدماتو مرنا وحين قطع سقال إلا واتن مرنا وحين قطع صدا مع الموت بين قطع سيد النبي عليه الصلاة والسلام وكعدي قول كيس وكعدي أحاديث تكويا لي يعني سنك إي صحيحين كإنتبا مركا إله وحوليه أياما أي صوموا صوما أياما مع المصوما مع المحصو معدودات التريي أياما إعرابات أو دور أي مفسرين تشيغان لكن هذا وحن اسكا قادانينا أو أمر أما فعل بان أسوء قدرينا أو مفعوليا كوكر ديغينا وحن لينا هاي صوموا صوما أياما مالما صوما مالمها صو معدودات التي فمن كان قفكي أهاضي فمن قفكي كان أهاضي منكم حالة أذنك وإذن كمدي هاي مريضا متحنوسا قفكي أهاضي أو على سفر أما السفر كركيس أهاضي أو صومكي آنان أوذين فعدة فعليهما لبدس قفود كركوذا وحا أهاتي عدة تري أي أهاتي تري داسو من أيام مالمها قد كأهاتي مالمها سو أخرى أو كالي مالما كالي بمعنى مالمه إيسوس أفرنايين أو قفك مسافر كأوعنايي قفك حنوصلين أوعنايي مالمها سينو ترسدو أو حساب صدو أو ملكو قرطو cudurka iyo musaafirnimada iyo xanuunka markuu ka zuula ay ka zuulaan ay ka dhamaadaan inuu soo qaleeyo ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ku waajib yeelay wa 'ala alladhina kuwi dushooda waxa ahaaday yutiqunahu soonka ku dhibtoonayay oo aan kari karin waxa korkooda ahaaday fidyatun madax furasho ama fidya bixin ayaa korkooda ahaatay fidyada soo dacaamu miskiin quudintiisa ahaatay ayaa laga doonayaa inay bixiyaan faman tadawwaca qofkii ziyaasada oo kordhiya khayran wana kordhiyo oo fidyadii bixiyo soomkina ku daro ama hal miskiin iyo wax ka badan quudiyo yani muujida fa huwa yani qofkaasi ama wanaagaas uu sameeyo ziyaadada ah أيا خير له وناك بدنوي وأن تصوموا إن الصنتان أيا خير لكم إذن وناك بدن إن أفرتان أو أصونك إسكت ديسان أو مساكين قودستي إذا أتكو كفتونتان وحا إذن كخير بدن إن الصنتان أيا إذن كخير بدن إن كنتم هداتهين تعلمون كو يقان حقائق الأمور أمور تأريمه إذا كو يقان هداتهين الله حوليه سبحانه وتعالى إن الصنتان با إذن كخير بدن أو إذن كوناك بدن وين هذا الله سبحانه وتعالى آيادا وحكو واجب يلي وكعدي وأنادين يا دتك أهل الإيمان كا إن الصومان واجب كاس أي قتان يكون دقاقان صوم كان وحالو لجيدا حق تعريف كيسا علماء مفسرين تا إيا أمام فقهاء أمام محدثين تا تعاريف فربضا oo soomka macnihiisa ay ku cabirayaan ayay muujida yani cadeeyona ka sugnaatay weeye laakiin tacriifaadkaasi haday tahay mukhtalifat al-ibaarati wa tarakib laakiin macnaheeda wuxuu imaanayaa hal xabu imaanaya oo loola jeedo al-imsaaku 'an at-ta'ami wal-wiqa'i biniyatin khalisah oo qofka inuu yani ka joogsada طعامka cuntada ah iyo in uu ku dhaca wax walba soonka burinaayo ha ahaadan wax xisi oo la dareemi karo sida cunidii cabidii kala ha ahaadan waxaan la dareemi karin oo macnawi ah sida yani muujida xanti iyo wixii lamid oo kala ah
inuu qofka ka jooga ou ka istaagnaado ou ka reebtoonaado biniyatin maca niyatin isagoo niyad qabo niyadaasoo khaalisatin oo ahaatay mid loo barax tiray allah subxaanahu wa tacaala lima fiiha waxa ku sugnaaday soonka min zakaati nufuusi wa dahaaratiha nafta in la daahiro oo dunuubta laga dhaqo macaasida laga dhaqo la toosiyo la edbiyo ayaa ku sugnaatay waxaa laga nadiifinayaa min alakhlaaqi alradii'a waalakhlaaqi alradiila akhlaaqda mideeda hoosaysoo liidato iyo mideeda xunxun baa laga zuulinayaa haddaba halkaasi allah subxaanahu wa tacaala saas ayuu u caddeeyey muslimiinta inuu ku waajib yeelay soonkaas sida ummadii horeba loogu waajib yeelay oo naga horeeyeen ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadaas ku caddeeyey haddaba marka soomka xilligii la waajib yeelay ummadda muslimiinta way iska ogyihiin oo way yaqaaniin calaa sabiili tanbiihi waaliimaa'i haddaan u sheegno waxaa la waajib yeelay sanadka oo hijriga markuu maraayey markuu maraayey subanaha calayhi salaatu wasalaam maka ayuu ku noolaayay dhowr iyo 10 sano kadib nebigu wuu haajiray wuxuu u haajiray madiina almunawara sanadkii labaad oo hijriga markii la maraayay fii shahri shacbaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala soomka waajib yeelay oo ummadda muslimiinta ku qoray way inay soomaan adilada tusinaysa aayadaha qayb ka midna waa soo tilmaanay axaadiista tusinaysa soomka inuu waajib yahay waa fara badan tahay ayadana waxaa ka mid ah xadiiskii saxiixeynka ay yani ku sugnaaday muslim iyo bukhaari ay wariyeen min xadiidi طalxata bni cubaydillaahi ahaayey annahu qaala طalxa wuxuu yidhi jaa'a rajulun nin baa u yimid ila الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam ayuu u yimid min ahli najdin reer najdi ka tirsan deegaanka najdi la yidhaahdo oo ardulxijaazi ka tirsan ayuu ka soo baxay thaa'ira ara'si ninkaasoo madaxiisa uu taagtaagan yahay shalla-aanta rafaadka iyo madaxiisa yacni aan la fiidin karin ninkaasoo yusmacu la maqlaayo dawiyu sawtihi codkiisa hugunkiisa waa la maqlayaa meel fog buu ka soo dhaqaaqayaa uu ka soo sawdaynayaa walaa yufqahu laakiin la fahmi maayo maa yaquulu waxa uu leeyahay la fahmi maayo xataa danaa ilaa uu uga soo dhowaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam faidaa huwa yas'alu can alislaam markuu soo dhowaaday wuxuubu weydiinayaaba islaamka xaaladiisa iyo arintiisa ayuu nebiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam subanahana wuu u jawaabiy wuxuu yidhi islaamka waxaa ka mid ah xaaladihiisa iyo arrimihiisa waxaa ka mid ah khamsu salawaatin fi lyawmi waleyla 5 salaadood oo ilaahay kuugu waajib yeelay habeenkii iyo maalinkii inaad dukato faqaala wuxuu yidhi ninkii hal calaya hayruha 5taas oo salaadood wax aan ahayno liigu leeyahay xagga salaadaha miyay jiraan qaala subanaha wuxuu yidhi laa maya wax kale laguma laha ilaa an tadawaca inaad la timaado rawaatibta oo sunnooyinka loo yaqaano oo daba socota salaadaha qaarkood mooye qaarna ay ka horeyso qaarna ay ka dambayso sidaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku jawaabay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi wa siyaamu ramadaan soomka yacni la imaadistiisa ayaa ilaahay kugu waajib yeelay waa meesha hadda maxalu shaahidka ah oo darsigeena ama kelimadeenna u munaasabka ah xadiiskaas subanaha wuxuu ku caddeeyey arkaanta ama islaamka diintiisa iyo maxaaladihiisa inay ka mid tahay siyaamu shahri ramadaan sida aayaddaba ay u caddaysay markaasuu wuxuu yidhi hal calaya hayruha wax kale miyaa liigu leeyahay qaala wuxuu yidhi nabiga laa ilaa an tadawaca inaad ziyaado la timaado soonka sunnada inaad soonto mooye wax kaloo lagugu leeyahay haba yaraatee ma jirto ikhwaanii marka halkaas waxaan ka garannay aayaddii oo aan ku bilownay iyo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu ku waajib yeelay ummadda muslimiinta soomka inay la yimaadaan iyagoo ilaashanayo aadaabtiisa ilaalinayo shuruudiisa ilaalinayo arkaantiisa ilaalinayo yacni ma ujeedaa manduubaadkiisa ilaalinayo guud ahaan axkaamta soomka iyagoo ilaalinayo kana ilaalinayo wax alla wixii soomkooda dhaawacaayo ama burinayo hadduu sidaas yeeli waayo cuntadii baan ka soomay cabitaankii baan ka soomay waxyaabihii kale soonka dhaawacayana waan ku tamashleynayaa ayada macna gooni ahoo keenaysa ma jirto
sida liqaa'aadka dambe iyo fadhiyada dambe nooga imaan doonta insha allah. haddaba marka dadka aan u dan leenahay oo jalsadan inaan wax uga sheegno xaaladahooda iyo axkaamtooda ka mid ah ummad muslimiin ah oo qaangaaro ah oo soomkii laga doonaayo ayaa jiro, laakiin haddana aanan awoodin arrimaha la soo gudboonaaday darteed cudurdaar ha ahaada cudurdaadkaasi mid mu'abadaho qofka la soconayo waqtigiisa, sida qofkii xanuunsanayey oo xanuunkiisa daa'im ahayey oo caafimaad aan loo rajaynaynin, ama qofkii wayneeya u weynaayo waayeelka ahaaye ama rag ama haween wuxuu raba ahaado, ama ha ahaado qofka musaafirka ah, ama ha ahaado qofka mariidka ah xanuunsan, ama ha ahaado qofka haweeneyda xaamilada ah ha ahaato, ama haweeneyda umasha ha ahaato, ama midda murdicada oo canug nuujinaysa ha ahaato. dadkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa asxaab alacdaar ayaa la yidhahdaa. waa loo baneeyey waana loo fasaxay inay iska cunaan oo iska cabaan fii ayaami ramadaan, ayadoo marka qof walbaba hadhow kale cudurkii markuu ka zuula looga dan leeyahay in axkaam iyo aadaab inay fuliyaan lagu waajib yeelay. insha allah waxaan ku bilaabi doonaa musaafirka xaaladiisaan ku xijin doonaa fadhigan hadda aan fadhino fadhiga nooga xigi doono. arrintaydu waxaan kusoo gabagabaynayaa ummadda muslimiinta ah cumuuman guud ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay baryaan oy allah weydiistaan in yacni ilaahayna gaarsiiyo soomkaas oo wakti badan aan ka dhinayn, naguna daro dadka waqtiyadiisii iyo maalmihiisii haleelay ee ka faa'iidaystay, hadday tahay qur-aan akhris, hadday tahay waajibaadkii ilaalintoodii, hadday tahay manhiyaadkii iyo sayi-aadkii ka fogaashahoodii, hadday tahay sadaqaadkii la bixidoodii, hadday tahay baryo allah la baryo, hadday tahay ictikaaf masaajidada lagu ictikaafo, hadday tahay taraawiixda iyo axkaamta oo soomka waqtigiisa soconayso oo waqtiyada kale aysan ay la qaybsanaynin, in ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo ayaan rabbi ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala. isaga awooddaas leh, annaga awooddaas ma lihin. marka walaalayaal, naftayda iyo nafta walaalahay waxaan u dardaarmayaa fursaddaasi waa fursad weyn. aad iyo aad ayaa saxaabadu qof walba uu rajo ugu qabay in mar un waqtiyada ka mid inuu ramadaan soo haleel. qofkii haddaba ramadaan la soo haleelsiiyey la waafajin doona waa loo nicmeeyey. walaalahay arrintaas inay ka faa'iidaystaan, naftaydan aan ku bilaabayo dardaaranka ayaan insha allahu tacaala kusoo khatimayaa. fadhiga ku xigan insha allahu axkaamtii ama dadkii aan magacawnay ayaan si yacni tartiib usoo gudbi doona insha allah. hadda kelimadeena intaasaan kusoo koobaynaa. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.